ninkii la qabto oo ajnabiya waa in loo gubaa la shiilaa daambir weyn lagu gubaa saas xaq u leeyahay markii xogta laga dhamaysto masaajidada jamaacada lagu tukado khudbooyinka ka baxaya waa inay xambaarsan yihiin la dagaalanka nimanka gaangiisa shanta qaaradood ama toddobada qaaradood ka yimid oo dalka Soomaaliya ku soo duulay oo dadka Soomaaliya isirkii sifaynaya si looga hortagi lahaa dagaalka in la gala waajib ay tahay qof kasta inay ku tahay waa inay wasaaradda arrinta amniga iyo cadaaladdu ay ka shaqeysaa masaajidada khudbooyinka jamcooyinka ay ku baxaan nin kasta oo khibrad military yaqaan ama baran karana waa inuu diyaar garoobaa soo dagaalkaas u dagaalami lahaa daliya dibadda dadka danaynaya Soomaaliya oo dhan ama dadka gobolada ka soo jeeda waa in maalkooda ku deeqa dagaalka Soomaaliya ku wajahan goormu bilowday wuxuu bilowday dawladda Soomaaliya markii dagaalka Itoobiya gashay cadaawad badan baa u samaysantay cadaawadaas waxa loo diyaariyay guruubo kala gadisan iyo dawlad xoog badan oo taageerayay dawladda Soomaaliya la kufiyo markii la arkay ololaheeda iyo wacyigelinteeda iyo bariga Afrika inay ka sameynayso dawlad البحيثة أما وعيجلسة قارة أفريقيا جروبات سواء كم يدها جروبات ما قاعدين تكشقية وعلى الديارية اللي يرو قالت شامعها قبل الله عربت خاصة السعودية وعكسوا بحين اللي يرو حمبارسن فقري ديني أو محرفة فكر كاس أو قوة جان علماء الصومالية يا شعب الصومالي احترام كده إلا كلا شرو waxaan ku garan karaa marxaanti waa kitaabka Soomaaliya ku turjuman aayada ugu dambaysa suurada Ruba wa'ud rabbaka hatta yatiya kal yaqeen waxay ku fasireen sida culimada garow degan ay ku fasireen ayagoo ujeedada ahayd dagaal ku wajahan culimada haddaan ka soo gudubno dawladda Soomaaliya markay dhacday waxa loogu talagalay si militariyan ah in gobolada Soomaaliya fikirka diiniga oo muxarrifka ah ama ka horjeeda fikirkii diiniga ee saliimka ah ee hadii Ilaahay ku roon yahay nabadgelyada ee Soomaaliya boqolkiiba diintu ka hirgashay soo lagu la dagaalamayo haddana militariyaysan oo hubaysan in gobolada bari lagu qabsado waxa la soo raray nimankaas qayb kamid ah oo fikirka xambaarsan nasiib darro madaxdii markaas gobolada waqooyi bari la oran jiray xukuntay وقيبنا يسدعها هاي قيبنا يسحوقها هاي waxay ku warjeed dekad waxay diyaariyeen dadkii Soomaaliya oo 18 gobol ka soo qaxay oo halka joogay oo dekad u dhiibtay dekadii dhaqaalaheedii inay ciidan ku dhistaan dabeedna subax jabcada ku weeraraan waxaana waa in dadkii bulshada Soomaaliya dareensiinaya dagaalkaas laba qaybood oo u xambaarsanaa laba qaybood baa ka soo qaaday qayb waxay ahayd dhowr iyo 10 nin oo Jabuuti joogta waxay saxiixday dagaalkaas lagu qaadaya gobolada waqooyi bari ka mudug nugaal iyo bari oo ay awood ugu badan SDF dagaalka lagu qaadaya inuu yahay dagaal lagu qaaday dad muslim ka horjeeda nimanka waxa sheekh u weyn ahaa sheekh ninka loo oran jiray sheekh Umar Faruq uu saxiixay warqadeeda waa la hayaa waxa dagaalka lagu magacdaray dagaal lagu qaaday muslim ka horjeeda qodobka labaad uu ahaa markii dagaalka 29 uu dhacay gobolada uu ka socday bari oo garow laga xoreeyay nimankaas argagixisada ah intaana sadicin horteed islaan maxamed iyo suldaan siciid waxa uu yeeshanayno madaxdii sida ay sheegeen labadoodu shirka dhacay isbitaalada garow 29kii waxa noo yeelay dagaalka 9 nin oo nimanka madaxdooda waxay yiraahdeen boqortooyooyinka madaxda boqortooyada ama boqorrada waxa loo bandhigi jiray islaamku in islaama cidii islaamta boqortooy waa loo diin jiray cidii kalena jihaad lagu qaadi jiray waxa idin ka codsanayna islaamtaan si boqortooyadii ay kugu baaqi yeelo waxa labaas marxaati u yihiin inay markaa aaminsanayeen gaalo dadka gobolada degan dagaalka waxa soo bilowday waa laga guuleystay dagaalkaas ciidankii ku jabay Saliid wuxuu wareegay koonfur waana mid ka saabay koonfurta Soomaaliya inay noqoto meesha xalka loo waayay oo urur kala gadisan ay hadii Ilaahay ku roon yahay ay ka samaysmaan waqtiga bacdigeed 2002kii jabhadii isbahaystay oo ay kamid ahaayeen waa kuwii bandiray la soo fariistay
waxay rabeen mar labaad gobolka bari ama haddii ilaahay ku rooyahay salka Soomaaliya ama salka Puntland in mar labaad la qabsado la fasahadsho waa tii laga guuleystay waa dagaalkii labaad oo goboladan ka dhacay gobolka saddexaad dagaal saddex waxa markii ka soo degay Madiina meesha la yiraahdo Garaacad iyo Garmaa ayagoo buuraha u socda waa tii la fashiliyay oo laga guuleystay dagaalkan hadda lagu qaaday gobolada bari intaas oo dagaal baa ka horeysay 29kii waxa ka dambaysa 330 sano 100 sano loo qaybay 3 meel ka mid ah buuraha Saliid 3 bilood markuu kula jiray Cabdullaahi Yuusuf ayadoo waqtigu xagaa yahay wuxuu arkayay in ay khabiir buu ahaa in loo socdo goboladaas in la dego oo lagu beero dad laba ujeedale inay shacabka Soomaaliya meesha laga tirtiri inay tahay halkaas midna waxa weeye in halka lagu beero niman gaangiis oo caalamka oo dhakiyo dambiilayaal oo caalamka oo dhan wax dhibaateeya oo caalamka halkaas maadaama ay tahay meeshan meel caalamka kala badha marimada caalamka ugu miibsan boqolkiiba 67 gaadiidka badda uu maro tawo hore soo dhacay waa laga guuleystay waxaan garanaynaa hadda maxaa waajiba dawlad iyo shacabka dadka Soomaaliyeed dagaalkaas inay taageeraan waxa la eedeynaya oo muuqata dawladda Soomaaliya oo waliba gobolada tan maal iyo naf ay galiyeen oo sal u ahaa inaan wali laga hayn inay taageeraan dagaalkaas waajibka oo bari ka socda waxaan ku soo ururinayaa dawladdu wacyi gelin badan bay sameeyay waxa alxamdulillah rabbil caalamiin maamulkan Siciid Cabdullaahi Dani waqti ka horeeyay oo yimid maamul ku guuleystay inaan ciidamo shirikeen soo qaadi karin alxamdulillah rabbil caalamiin maanta hadii dadka Soomaaliyeed ay wacyi gelin ay qaadanayaan oo la is wacyi gelinayo waxaan ku soo ururinayaa qodobkaas oo aan kaga tagayaa dagaalkaas dawladda abaabulka inay sii siyaadiso shacabkan uu taageero oo maxay tahay waa inay soo baxdaa wasaaradda arrimaha diinta cadaaladda oo kaleeto jamcadii la arkaba masaajidada jamcada lagu tukado khudbooyinka ka baxaya waa inay xambaarsan yihiin la dagaalanka nimanka gaangiisa 5 qaaradood ama 7 qaaradood ka yimid oo dalka Soomaaliya ku soo duulay oo dadka Soomaaliya isirkiisa sifaynaya si looga hortagi lahaa dagaalka in la gala waajib ay tahay qof kasta inuu ku tahay waa inay wasaaradda arrimaha diinta cadaaladdu ay ka shaqeysaa masaajidada khudbooyinka jamcooyinka ay ku baxaan nin kasta oo khibrad military yaqaan ama baran karana waa inuu diyaar garoobaa soo dagaalkaas u dagaalami lahaa daliya dibadda dadka danaynaya Soomaaliya oo dhan ama dadka gobolada ka soo jeedana waa in maalkooda ku deeqa ninkii la qabto oo ajnabiya waa in loo gubaa la shiilaa daambir weyn lagu gubaa saas xaq u leeyahay markii xogta laga dhamaysto saas dib loogu soo noqon waxaan ku soo ururinayaa dawladda iyo shacabka waxa waajib ka dagaalkaas in qofka wixii kaga aadan uu ka qaato waxaan ku soo ururinaynaa ilaahay hayna ku guuleeyo saraakiisha iyo ciidanka dhammaantiina waxaan leeyahay xogna yayda ka baaqan ninkii aan daacad u noqonna iyaga dili doona ninkii daacad u kula dagaalamana ilaahay waa ka badbaadinaya biidnillaahi alkariim wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh